dowladnimada Soomaaliya laguma dhisi kara ciidan siyaasadda Soomaaliya waa inay noqotaa siyaasad civilian ah oo madax banaan oo ka madax banaan ciidamada wadankan siyaasad ku dhisan ciidameen iyo asgareen iyo aragti military iyo xoog ku dhisan waa tii dumisay laguma dhisi karo qof Soomaaliya oo aqbalana ma jiro qofkii ay la tahay in lagu dhisi karana waxaan dhahaynaa waa triyoonaysa waxa kale oo la rabaa ayagana in wax arrinkaada loo sheego saraakiisha Soomaalida iyo askarta Soomaalidu ha ogaadaano taliyahoodu haddii uu siiyo amar ka baxsan dastuurkan dembiga ay galaan ayaga xambaaraya lagama yeeli doono amara la siiyay asgariyan ahay lagama yeeli doono ogsoono muwaadin asgari muwaadina tahay xuquuq iyo waajibaad ku saaran ninka taliyaha ku ah haduu dimbile uu yahay oo amar qaldan uu ku siiyo oo walaalka dil uu ku dhaho oo aadishid ogsoono adna waa lagu haystaa maalin maalmaha kamida dadka Soomaaliyeed ee lagu barakicinayo gobolka Gedo iyo kuwa lagu dilay Ruusamareeb iyo kuwa guriga lagu dilay Cabdiraxmaan Shukuur dadka dilay iyo kuwa soo amray maalin maalmaha kamida waa la xisaabtami doonaa dalkaana uma dul qaada kariyo dadka inta la dilo in la iska joogo qodobka ugu dambeeya waxa waaye oo dad fara badan ay aad uga qayliyeen laakiin Soomaalida ay ku maahmaado ninkuu diga kuma dilin waa maxay hadii dawladda federaalka ah ay ka joogso weyso wadada ay ku socoto oo wadada qardajeexa ay ku socoto ay ka joogi weyso then dadka Puntland waxay dawladooda u idmadeen inay tilaabada ku haboon ay qaadi karto taas macnaheedu marka ma aha waa goosanina ay dhahan ma waa shardi muqayyada la dhaha shardi muqayyada waxa way niyahow saas samee hadii aad sameeysid sidaasan sameeynaa waa marka adeeg kugu xiran tahay marka Puntland waa goosanayna ma dhihin ee waxay yiraahdeen hadii dastuurkii lagu heshiiyay lagu soo laabo waayo oo kana oo lagu dhaqmi waayo hadaan nahay dadkii Puntland aastay dawladeena waxaan u wakiilanay inay qaada karto talaabada ay u aragto inay tahay danta iyo maslaxada Puntland saas marka waxa la iska rabaa marka ciddi marka dastuurkan ciddi lagu doortay oo lagu dhaariyay kitaabka Ilaahay inay dastuurkan ku shaqeyso oo lagu dhaariyay inay aqbasho sareynta dastuurka bacda kitaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu tala galay ciddaas ayay galabta agtaala haddii aqbali weyso sareynta dastuurkan lagu doortay dadka Soomaaliyeed waa ka tashanayaan kaliya Puntland ma aha cid kasta oo Soomaali ah ayaa ka tashan doonta oo aniga iyo adigu aan ugu horeyno maalintii ay dhacdo hogaanka jira dalka Soomaaliya waa ixtiraamayna madaxweynaha Soomaaliya ah asaan la doortay legitimate Soomaaliya asahaaya bisha Febraayo 7 kana waa sugi karnaa waana sugaynaa laakiin hadii ay dhacdo in kan la garab maro oo kan la diido dadka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin ayaguna inay diidaan waxa la wado sababtu waxay tahay this is called the social contract waa an ya adiga oo galayna heshiis wixii aan ku galnay aqdiga aan ku galnay waay heshiiskan an ya adigu isla galnay hadii anigu aan ka baxo adiguna inaad ka baxdo waxa u leedahay xaq marka waxaan u sheegaynaa hogaanka Soomaaliya adiga iyo dadka Soomaaliyeed waxaad gasheen heshiis haddaad heshiiskaas aad ka baxdid dadka Soomaaliyeeduna waa ka baxayaan